shirkad duulimaad oo laga leeyahay jasiiradda Samoa ayaa rakaabkeeda tikidhkooda ugu qiimeynaysa inta uu macaamilku miisaankiisu leeyahay haddii aad miisaan badnaato lacagta tikidhkaagana waa uu kordhayaa. markay arkaan in tikidhkoodu uu ku xiran yahay miisaankooda ee aysan ahayn kuraasta waxay ku qanci doonaan go'aanka wayna noo soo laaban doonaan xilligay doonto ha noqotee. They've had time to digest that information and marwadani waxay leedahay go'aankan wuxuu fursad ii siinayaa safarka aniga wiilkayga yar waliba qiimo aad u jaban hase yeeshee dadka kale waxay leeyihiin aragti mid ka duwan. uma malaynayo in go'aanku yahay mid dhexdhexaad ah waayo dadka dhuuban waxay bixinayaan lacag yar kuwa burburanna lacag badan. jirkaygu waxa uu soo kordhay waqti dhow imika waxaan doonayaa inaan yareeyo miisaankayga waxaana bilaabayaa jimicsi si aan lacag yar u bixiyo. To go do some training to get a cheaper fare. waxaana la sheegay in ururka caafimaadka adduunka ay ku sheegtay in 60% ay yihiin dadka jasiiradda Samoa dadka aadka u burburan.